kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waa khamiis tirada taariikhduna waxay ku beegantahay 26 bisha 12 2024 qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan hadii Allah awood leh uu raali ka noqdo waxa qayb ka noqonaya xiisad culus oo wali ka taagan deegaanka Dacwaley oo 24kii saac la soo dhaafay ay ku dagaalameen ciidamada Liyu Police iyo dadka deegaanka qasaarihii ugu xooganaa oo dagaalkaasi ka dhashay ku dhawaad 40 ruux oo aswadareed lagu sameeyay deegaanka iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay xiisad lixaad leh oo ka taagan deegaankaasi inkastoo ciidamada Liyu Police laga saaray wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Somaliland oo wuxuushnimo ku tilmaamtay falkii argagaxa lahaa ee ciidamada Liyu Police ay ka geysteen deegaanka Dacwaley ee degmada Xarshin ee gobolka Faafan waxaan idin soo gudbin doonaa Somaliland oo tilmaamtay in ay qaadi doonto tallaabooyin culus iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda halkaasi ka taagan ayaan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan hadii Allah awood leh uu raali ka noqdo waxa qayb ka noqonaya xilligan Jubbaland oo qayladaan xoog la ka muujinaysa talaabo ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo caqabad xoog la ku noqotay dadka ku dhaqan deegaanada maamulka Jubbaland iyo sidoo kale madaxda maamulkaasi waxaan idin soo gudbin doonaa talaabadaasi waxa ay tahay iyo sidoo kale xilligan Jubbaland qayladaanta ay muujinayso qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Ethiopia oo xilligan difaacday xasuuqii ciidamada Liyu Police ay ka geysteen deegaanka Dacwaley oo 24kii saac la soo dhaafay xiisad culus ay ka taagneed wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal hadii Allah awood leh uu raali ka noqdo qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaysa Soomaaliya oo cadaadis ballaaran kala kulmaysa dawladaha Masar iyo sidoo kale Eritrea oo xilligan aad uga hor yimid heshiiska dawladda federaalka Soomaaliya ay la galayso dawladda Ethiopia wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal arrimahaasi ku saabsan qodobada iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan hadii aad channelkan ku cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe gareyso sidoo kalena gambaleelka aad furato si aad u hesho wararka 24 saac halkan aan idinku soo gudbinayno hadii alla weedmo waxaan ku bilaabayaa deegaanka Dacwaley ee ka tirsan degmada Xarshin ee gobolka Faafan wararka iminka ka imaanaya waxa ay tilmaamayaan inay xiisad culus halkaasi ka taagan tahay sidoo kalena ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo ay wadaan ciidamada Liyu Police iyo sidoo kale dadka deegaanka oo markii horeba halkaasi uu ku dhaxmaray dagaal geystay khasaare iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac wararka deegaankaasi ka imaanaya waxa ay tilmaamayaan in ku dhawaad 40 ruux oo dadka deegaanka ah in ay ku geeriyoodeen dagaalkii 24kii saac la soo dhaafay ka dhacay halkaasi ee u dhaxeeyay ciidamada Liyu Police iyo dadka deegaanka inkastoo markii dambe khasaare xoog la gaarsiiyay ciidamada Liyu Police sidoo kalena laga saaray magaalada halkaasina ay kala kulmeen jab iyo wajigabax aad u xoogan dawladda Ethiopia ayaa xilligan ama ciidamada Liyu Police ayaa xilligan waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayaan inay mar kale dib ugu soo laabtaan deegaanka Dacwaley oo maalmihii ugu dambeeyay xiisad culus ay ka taagneed dadka deegaanku waxa ay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin xilligan in ciidamada Liyu Police ay falal xadgudubyo ah ka geystaan oo bini'aadanimada ka dhan deegaanka maadaama xilligan 40 ruux la aasayo sidoo kalena dad badan oo odayaal dhaqameedyo u badan ciidamada Liyu Police ay hore u ka xisteen kuwaasi oo xilligan maxaabiis ahaan ay u haystaan deegaanka xiisadiisa xilligan waa ay kacsan tahay waxaana soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda oo labada dhinac ah dadka deegaanka ayaa xilligan waxa ay helayaan gurmadkii ugu ballaarnaa oo ka baxay Somaliland kaasi oo gaaray deegaanka Dacwaley ee degmada Xarshin ee gobolka Faafan halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka taagneed xiisad culus oo u dhaxaysa dadka deegaanka iyo ciidamada Liyu Police oo si xaq darro ah dadka halkaasi ugu xasuuqay waxaana la tilmaamayaa in xaaladdu iminka ay tahay mid aad u kacsan warar kala duwan ay ka soo baxayaan dadka deegaanka ayaa xilligan waxa ay ku howlan yihiin aaska dadkii halkaasi ku geeriyooday oo la sheegay inay tiradooda kor u dhaafayso ilaa 40 ruux oo iskugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale ciidamadii dagaalamayay ee dagaalka culus kala hor yimid ciidamada Liyu Police ee sida gardarrada ah ugu soo duulay dadka aan waxba galabsan ee shacabka ah ee halkaasi ku dhaqan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ayaa soconaya oo aad u xoogan waxaana la tilmaamayaa in xiisadu marba marka ka dambeysay ay aad uga sii adkaanaysa halkaasi sidoo kalena ay isku soo tarayso labada dhinac ayaa waxa ay sameynayaan hub urursi waxaana laga cabsi qabaa in mar kale dagaal uu ka qarxa halkaasi oo waxyeelo kala duwan ay ka soo gaarto dadka shacabka ah ciidanka Liyu Police ayaan si aan
arxan lahayn waxay u xasuuqeen dadka shacabka ah waxaana la tilmaamay in madaafiica loo meeldayin ay ku garaaceen gudaha magaalada taasi oo sababtay in khasaare badan uu ka soo gaaro dadka rayidka ah xaalku iminka waa uu degan yahay laakiin mar walba waxaa la filan karaa in dagaal halkaasi uu ka dhaco dhinaca kale Somaliland ayaa si carala waxay uga hadashay dagaalkii halkaasi ka dhacay iyo sidoo kale xadgudubka ciidamada Itoobiya ay ku xasuuqeen dadka shacabka ah ee halkaasi ku dhaqan Somaliland ayaa dawladda Itoobiya waxay u gudbisay codsi ku aadan in dagaalkaasi la joojiyo sidoo kalena xilligan faragelin lagu sameeyo laakiin waxaa la tilmaamay in codsigaasi wali uusan dhaqan gelin ciidamadii Liu Bolisna wali ay ku hareeraysan yihiin deegaanka inkastoo banaanka looga saaray gudaha magaaladana ay joogaan ciidamada dadka deegaanka xaalku wali ma degana Somalilandna waxa ay sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin cadcad haddii Itoobiya ay ka dhaga furaysato xilligan baaqyada kala duwan ay u dirayso oo ku aadan in la badbaadiyo dadka rayidka ah ee halkaasi ku dhaqan sidoo kalena la joojiyo dagaalka sharci darrada ah ee ciidamada Itoobiya ay ku soo qaadeen xilligan dadka ku dhaqan deegaanka Dacwaley oo ah deegaan nabdoona markii hore sidoo kalena dadku ay isdhex deganayeen dhinaca kale maamulka Mustafa Cagjar ayaa waxa uu difaacay ciidamada Liu Bolis waxa ayna sheegeen war qoraal ah oo ka soo baxay in xilligan ciidamada Liu Bolis aysan ahayn duulaan laakiin duulaan lagu soo qaaday laguna gardarooday taasina ay keentay in isdifaacaan waxay u muuqanaysaa in Mustafa Cagjar iyo maamulkiisa xilligan ay difaacayaan xasuuqa dadka shacabka ah ciidamada Liu Bolis ay u geysanayaan ee ku dhaqan deegaanka Dacwaley ee ka tirsan degmada Xarshin ee gobolka Faafan xaalku waa uu ka sii darayaa waxaana ciidamada Liu Bolis oo gacan ka helay ciidamada militariga Itoobiya xilligan la sheegay in ay ku soo wajahan yihiin degmada sidoo kalena ay wadaan in ay halkaasi dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka fuliyaan Mustafa Cagjar iyo maamulkiisa waxa ay sheegeen in aysan marnaba ka baaqsan doonin in ay mar kale gacanta ku soo celiyaan deegaanka Dacwaley sidoo kalena iyago maamulkooda uu hoos yimaado laakiin arintaasi waxa ka dhiidhinaya dadka deegaanka oo sheegay in ay tahay mid aan la aqbali karin markana Jubbaland waxay wajahaysaa xilligan xaaladihii ugu adkaa waxaana dhaqdhaqaaqyo culus halkaasi ka wada ciidamada maamulka Jubbaland inkastoo saameyn adag ay ku yeelatay talaabo ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya Jubbaland ayaa waxay xilligan qayladaan xoogan ka muujinaysaa xanibaada diyaaradihii tagi jiray magaalada Kismaayo la saaray taasi oo la sheegay in ay sababtay dhibaatooyin badan oo cawaaqib xumo ku ah dadka shacabka ah xaalad adagna ay kala kulmeen dad badan oo xaalada caafimaad la doonayay in dalka dibadiisa loogu soo qaado sidoo kalena lagu soo gaarsiiyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa la sheegay in ay geeriyoodeen halka kuwa kalena ay la ildaran yihiin xanuunno markaasi la doonayay in laga daweeyo si dhaqaatiir loogu helo laakiin dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba waxa ay joojisay diyaaradihii tagi jiray magaaladaasi waxa ayna ka hortimid dawladda federaalka Soomaaliya in wax diyaarada ay tagto magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyadoo oo lagu saleynayo in mid kamid ah diyaaradihii tagi jiray magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland uu afduubtay sidoo kalena uu ka dejiyay magaalada loo yaqaan Ras Kamboni halkaasi oo la sheegay in ay ciidamo ku geysay ama ay ku geysteen maamulka Jubbaland arintaasina dawladda federaalka Soomaaliya ay aad uga carootay waxay u muuqanaysaa xilligan in xaaladda siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya iyo khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland inuu aad u sii xoogeysanayo laakiin siyaasadda ay isku hayaan maamulada Jubbaland iyo sidoo kale dawladda dhexe federaalka Soomaaliya inuu saameynayo dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan arintaasi oo cawaaqib xumo noqonaysa waxaana arintan ka digay dadka odorosa arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyaga oo tilmaamay in xilligan aan loo baahnayn in dadka shacabka ah la dhibaateeyo iyadoo dana siyaasadeed la isku hayo lama oga halka ay ku dambeyn doonto xaaladan laakiin Jubbaland xilligan qayladaan xoogan ayay ka muujinaysaa xaaladda iminka soo cusboonaatay ee taagan ee ku aadan in xilligan Jubbaland aysan u tagi karin diyaarad ama isa ka degi karin magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ugu dambeyntiina haddii aanu eegno dawladda federaalka Soomaaliya ayaa cadaadis xoogan oo laba dhinac ah waxay kala kulmaysaa dawladaha Casmara iyo sidoo kale Masar oo xilligan doonaya in ay ka laabato dawladda federaalka Soomaaliya heshiiskii ay
magaalada Ankara kula gashay dowladda Itoobiya taasi oo ay u arkeen inay tahay mid dhabar jabinaysa sidoo kalena danaha labadaasi dal ama dalalkaasi aanan ka shaqeynaynin xilligan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligan waxa ay taagan tahay laba daran mid dooro maadaama Masar ay ku mana sheeganayso taasi oo ah in ay hub u siisay dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena ay isgarab istaagtay markii dowladda Itoobiya ay damacday inay duulaan cad ku soo qaado madax banaanida Soomaaliya halka dowladda Eritrea xilligan ay ku andacoonayso in dowladda federaalka Soomaaliya ay u soo tababartay dhalinyaro badan kuwaasi oo ku wanaagsan dhinaca difaaca iyo askarta arintan waxay noqonaysaa mid xilligan dowladda Soomaaliya loogu mana sheeganayo isla markaasina heshiiskan ay la gashay dowladda Itoobiya ay noqonayso mid xilligan in ay ka baaqsato keeni kara laakiin lama oga talaabada ay qaadi doonto filla waxa kaliya laga dhur sugayna waxa ay tahay maalmaha soo socda iyo sidoo kale wararka cusub ee heshiiskaasi ka soo bixi doona hadii Allah ugu dalo uu raali ka noqdo wararkan iyo wuxuu ku soo kordhay wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan hadii Allah uu idmo hadii aad channelka ku cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe garayso sidoo kale gambaleelka furato si aad u hesho wararka 24 saac halkan aan idinku soo gudbinayno waad ku mahadsantihiin inaad nala socotaan sidoo kale waa noo muhiim inaad nagu soo biirto